arrinta kale aan rabo fariin inaan u diro beesha caalamka jirta arrin oo aan hadda ka afeefanayo mahmaha jirto lidaada dooga kiin horay darbiga dooga ko hormari darbiga waa lidaada hadalkaaga haddaad hor u dhigato darbigaadu ku noqon casharada aan baranay oo aan baarlamaankii sagaalaad ka soo baranay waxa weeye markii siyaasiyan arrin annaka aan u jeedno in ay qaran ahaan u wanaagsaneen oo loo baahay in laga doodo waa naga hor yimaadaan waxaan rabnaa mararka qaarkood yani mararka hadda barxaladan la galay in nala dhegaysto amuuraha in laga dhegaysto ayaan raadina maxaa ka mid ah sugi maayo baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ma sugi doono ilaa 2019 la gaaro ka bacda la fiiriyo suurtagal ma tahay doorashada haa iyo maya ma sugayo hadda 2017 aan bilaabaynaa waxaan idinka rabaa guddiyo inaad gadaal u soo xisaabtantaan 2020 ka soo bilaabo reedow u soo xisaabiya suurtagal ma tahay arrimaha la iska doonayo inaan hirgelin karno 2020 haddii maya ay tahay walaalayaal hadda ii sheega hadda sanadkan dhexdiisa noo sheega baarlamaankan geynaya waqtiga xilhaynta baarlamaankan dheerayna ilaa ay ka suurta gasho hal qof iyo hal cod ma yeelayno 2019 markii hooyo jawaari waxaad rabtaa inaad cumri dheeraysataan maya cumri dheerays ma arrin qaran waay maaha xildhibaanada meesha inay joogaan waxaan rabnaa haddii 5 sano ay ku suurtoobaysa hadda noo sheega hadday 6 sano ku suurtoobaysa hadda noo sheega ama doorasho dadban kale u noqonaynaa shacbiga aanan been u sheegin haddeertan hal la xisaabiyo maxaa suurtagal ah si yani maxaa loo baahan yahay arrimaha loo baahan in la qabto in la meerdhigo la diyaariyo ay loo baahan yahay haddeer hal sheego imise muddaa loo baahan yahay road mapka lagu soconayo waqti walba meeshii la qabanayo noogu soo sameeyo shintiris noo horkeena shacbiga waa loo sheegaa barlamaan ay leeyihiin aqal sari aqal shacbi ay leeyihiin way ka doodayaan shacbiga meeshuu rabo dhigana cid aan kaga haybadaysanayno male laakiin hadda aan ka hadalno gooray marata sanad ka dhiman tahay dhowr bilood ka dhiman tahay ma doonayno in dood ay bilaabato ka bacdi far isku fiiqid iyo eed la bilaabo ma yeelayno guddiyow alla ka cabso jilibka laabo shaatigaaga furo waxaan idinka rabaa inaad istaraatiijiyadaas noo keentaan waa suurtoobaa idhaha baarlamaanka waa ogolaana ma suurtoobaa ina dhaha wixii uu ka suurtoobi karo noo sheega ama doorasho dadban kale aan u noqonaynaa ama baarlamaanka iyo waxaa muddadii intaan dheeraynayna labada mid ay noqonay laakiin galab iyo isku farfiiq iyo is-eedayn iyo international baa maxaa sanctionaan ku saaraynaa iyo waxaanaan kaala bixaynaa iyo hadidaad ma ka bixi karo shacbigan wuxuu ku jiraa amni xumo wuxuu ku jiraa gaajo wuxuu ku jiraa abaar wuxuu ku jiraa intaa hadda xaaladdeena sida haddii aan runta idin sheego waxaa weeyaan waxa aan la xarbinayno qof meel oo lama degaana ama desert aad degan gaajaysan qaawan jiran baahan ooman ayaanu leenahay dimuqraadiyan ku barayaa kaale intaasoo dhan waxbay naga rabtaa inaan dadkeena qabsanaan rabnaa inaan dhallinyaradeenna oo hirgelinaan rabnaa inaan shaqo abuurnaan rabnaa inaan gaajada ka tirno inaan tuugtuugsigaan oo masawirada lagu tuugtuugsanayo oo la wareejinayo ma doonayno shacbiga ma doonayo inaan ka baxnaan rabnaa hablaheena oo garbisaar isku qarinaayo wejigaaga yaa la arkin oo ay marata ay saliidda ku qaadanayso ma doonayno walaalayaalow arrintaa noo sameeya markaan aan u duubano arrimaheena kale ayaanu sugaaya waxyaalo badanaanu sugaaya inaan qabsano intaasaan idin xilsaaranay annakii ummaddan kale oo la yidhaahdo beeshanaad inaan beeshaan waxaa lahaa beesha lixaad inaan isqabsano beesha caalamka inaan isqabqabsano ma rabnee walaaliyaalowna kala fura maskax shiil sameeya ahlan wasahlan ninkaa la yidhaahda axmed aniga isagoo soo wada shaqaynay un-kan wada shaqaynay saaxiibkayga waay anaa ku riixay xaliimo wadaadkaas raadi ilaa baarlamaankii sagaalaad baa wadaadkaas raadi aan laha farmaajo ma keensana annagaa keensanay waa insha allah waa kuwa oo magaciisa kuwaan edogta darana wax ka qorayo waa iska marin habaabin wada weeyaan marka taa aan ku soo gonaanido بيت القصيدة waxa weeyaan walaalayaalow guddigo madax bannaan khubaro waxaad doonayso annagoo dhan baa diyaara inaan kula shaqeyno diyaar baan ku nahay labadeena aqalna idinla shaqeeyaan arrintaa muhiimadda gaarka u leh qaranka naga xigsada
مسكح شيل سماية عاد كعشر تاني سنجرين على كسكو أنك إذن لجرينا خرنت نوكيا يعني سوق الصلاة